waxaan ka arkaynin 3 sano 4 sano ilaahay ma hadle dadka muuqda dhagihiisa sankiisa waa arkaa ilaahay ma daro waa mahad ba ilaahay ma ku mahadinaa dadka loo yimidna waan ku mahadinaynaa waan aragnaa dadka indhihiisa dhagaha iga waan ku saa adiga waa ku arkaa dhagtaada waa arkaa midigta taa kale waa arkaa ilkahaaga waa arkaa ilaahay ma haddaale dhakhtarka iyo dawladaba ilaahay waa mahadinaynaa guriga dhiga anagoo guriga baa xalas seexday magsa leexay guriga seexday saakana wakaa ishadina waa caadigi waa ilaahay ma hadda ilaahay waskale dawladda iyo ahsan dadka loo yimid dhaqaatiirta waa ku mahadinaynaa intii 2 sano yaan ka yar waxaysna laakiin sanad baan eega yeedam ita maanta ka waran walana iyo mahadsanaha ma sharaf alxamdu shukri وكاولا والشيطان والدنت شرف بان المهد علين هيا وعلينا دولة النجا وليش الندى مهد نقبانو هيا مدعو 10 سنة ودنت كأنت إيو كاميرا دوارك سفي عم بوحورك أبل جد ودعينا جنادي الله جيان لنا وكفي عن مجر waxaa ma arkin dambe laba bilood bay dansaneed maraan uga galay marka aad bay hadda u fiicanta oo ka aragtida hadda waan arkaa dareenkayga aad buu fiicay marka waa kaas aad baan u fiicanahay ayadoo annagoon meel aadin oo si fiican ma garanaysaa bartan ay noogu imaatay lacag la'aan aad buu dareenkanagu maanta u fiicay laba sano iyo dayl baan wax arki waayay caad baana isaarnaa caadkii waa laga xafaaro un baa haya وكا ما أنت وحوار أركا إلهي مهد وين نواسينا مهد وين الله اللي بانانا نري إيش إن بدن أفر سنة واي حنونيس لبنا وي دمت لبنا وي حنونيس وإلا أنت ما أنت رب الحمد لله رب العالمين الشكر لله إلهي بالغم هديا ما أنت دت كاس ودن وأنا أركا ومهد إلهي دت كنا إلهي ناكين الحمد لله رب العالمين وسلامتي سلام الله يا غريب أدونك الله يدين عفية مسابح الله يدين كردك هل باركينني همك سبانها هيك كاس تادق قشان واحتن وانكو أركا وحطاودن أول هل باركيني إله الحمد لله رب العالمين هذا نصنا إله يقول هذا وخير magacaygu waa Axmed Abdi Cali waxaan ahay maamulaha dugsiga sare ee degmada Looweyn sidaad ogtihiin xubnaha bilaaadmiga waxa uu qaalisan waa indhaha qofka hadduu indhaha dhibaato ka soo gaadho dee wax ma arkaayo ama inuu socdo ma awoodo marka adeega noo dhaqaatiirta naloo keenay noo timid indhaha operationka dad ku sameynaya hadda aniga tusaale ahaan aragtida dhow markaan sabuuradda wax ku qorayo iyo markaan wax aqrinayo way dhibi jirtay saakana waxaan arkaa
wax walbaan awoodaa inaan akhriyo oo ma garanaysaa ii fududaaday aragtidii dhaweyd oo kiyaalahaasa lii geliyey marka aragtidii baa ii fiicnaatay oo si wanaagsan ii noqotay waa service fiican oo naloo keenay aad baan uga mahadnaqaynaa hay-adda noo qashay intaasoo qof baa laga qalay indhaha oo aan gaari karin goobaha ee indhaha adeega aan heli jirin intaasoo qof baa daawo la siiyey intaasoo qofna waxaa la siiyey ookiyaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa ilaahay mahadi dhakhaatiirta waxaan salaamayaa sharafta leh noo imaatay waana ku mahadinaynaa waxaa hadda ka hor qabsatay in aan meel u jirto 60 kiiloomitir degmada uu yaalay waxna uusan arkaynin uu qof meel aanu dhaqaajiyana waayey inta kilarka uu yahayna degmadii u dambaysay aanu nahay waxaan u mahad celinayaa dhakhaatiirta sida sharafta leh iyo wanaagga noogu imaatay annaguna waanu ooga mahad celinaynaa waxaan ku soo dhibaatooyinkana qabsatay qof weyn oo 80 jire oo waxba arkayn oo meel kuu fadhiyo waxna aadan ka qaban karin adduunyada midii igu darayd ba ahayd ana ila kulanto sida qiimaha badan ee hadda ay nooga soo qayb galeen waan ku mahadinaynaa tog baxara noo dhaxeeyay degmada annada iyo qawalahana waxay isku jiraan ilaa 60 kiiloomitir intaasaan gaadhi dameer ku soo wadnay markaan tog imaanay oo cirka marayana jeerigaan baanu qabannay si ilaahay qaadir ee qafuur raxiim ayaa noogu gargaaray nooga soo bixiyay dhaqaatiir qiimo badan baanu imaanay si qiimo badan bay wax nooga qabteen indhihiisina waafay oo alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay ها انت 10 سنه وكا ما انت وافقنا الى دقيق وكا ولدنا الى حمدي برانك ايش وي في عن تاعد بيقو في عن تاعك وكا الى حمدي واسدنا نودقليو الى دقيق بان قبا الهي بان نوكي كاني الهي بان نوكي كاني مال شيء كذا ونغا وينay dhahan يا شلي دراد labada saac ya gaardawar laga soo saaray 3 saac oo habeenimo aadkan halay keen intaas ilaahay ma hadiya waxaan doonaynaa ilaahay baa nasiiyay سنة وحبا كمان في عن كمان أركين إيجن هذا إفتين في عن باقي موضة إلهي بالغم هذين هيا ومدة سجان نوكين نصن عينيس سنا ويا إلهي بانكم هذين إذا كانوا وادكم هذين هنا وكا ترين كي وحولي ترين في عن بان قلبك كقبا وكا إن بدن إنت دور طبعا لو تصنع ساسي أهي ما أنت إلهي ديق وحلا إيه إفتين هيا إلهي بالغم هذيا إذا كانوا وادكم هذين هنا إذا ما هذا إلهي بأسكال إذا كان ما هذا بالليل مدنا ودرها بالقلة وحبوا كوار شوي تنا أولا وحكوار كهي وعرق بدنا أهين شلت كل عرسين وفي عنته
aad bay u fiican dadkoo dhan iga waan arkaa allah idin barakeeyo waxaad doonaysaan allah isiiyo midka balaayo dhaleen xajaa khayr nimantan aan furo barakooba hadi bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan joognaa degmada Dhoboweyn health centerka Dhoboweyn waxaa noo socda indhafiiqitaankii oo degmadii labaad oo wareega koowaad bay noqonaysaa kolka ilaa imika natiijada waxaan qallayna si fiican bay u arkaan kolka hoosh way noo soconaysaa wali bartanka ku jira oo kolkaan tani dhammaynana qallafan u gudbinaa sidoo kale waxgaradka ku sugan degmada Shilaabo ayaa si diiran u soo dhaweeyay kooxdan dhaqaatiirta indhuhu adeegana ka fulinayaan degmada Shilaabo waxaan u aragnaa adeer markii koobaad dhammaan inta nagu sababowday iyo inta noo keentay iyo tiimka inta horta waa salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ka bacdigeed saan ugu faraxsanahay waxaad malayn kartaan ma aho boqolkiiba boqol baan ku faraxsanahay sida roobka loogu faraxsan yahay iyo daamadiisa yani ugu faraxsanahay tiimka noo yimid aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa huu jiro oo jiri doona Allah ka dhigo waa soo dhaweynaynaa mehe waa soo dhaweynaa soo dhawaada nabadgelyo ku soo dhawaada waa ku faraxsanahay waa rabnaa waa doonaynay waa nasri Allah noo keenay waa jiro jooga waa idin garab taaganahay waa soo dhawaada waa nabad ku soo dhawaada bismillaah anigoo ah cali raaga hurre odayaasha degmada Shilaaboodna kamid ah waxaan odayaashaas haddaan nahay u mahad celinaynaa tiimka indhaha ee noo yimid inay mar horeba noo yimaadaan bay ahayd waxaanan jecel lahay mar walba inay sidaas maaragtay noogu yimaadaan waxay maanta qabteenna waa wax muuqda inay maaragtay mar walbana sidaas noogu yimaadaan oo dadka ay hawshooda saas ay hadda u qabteen ee wanaagsan ay mar walba noogu qabtaanna waan rabnaa haddana hawshay qabteen waa wax muuqda intaasoo axad oo indhala'ayd baa indhaha loo fiiqay waanan u mahad celinaynaa waana mahadsan yihiin dhaqaatiirta noo timid ee nooga timid kililka waxaanan u soo dhaweynaynaa sidii loo soo dhaweyn jiray dad la jecel yahay oo walaala oo nala mid ah oo u shaqaynaya dadweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxaa la yidhaahdaa faarax awdool maxamuud waxaan ka mid ahay odayaasha Shilaabo waxaan u arkaa dhaqaatiirta noo timid marka hore ee koobaad ilaahayga weyn baan ku mahadinaynaa marka xigana dawladda ay magaceeda wataan ee soo abaabushay hawshan lahayd baan marka labaad ku mahadinaynaa marka saddexaad farsamada ilaahay noo baray ee noo yimaadeen ay wax noogu qabteen baan ku mahadinaynaa waxaan u arkaa wax ilaahay jihadiisa nooga keenay oo farad ah oo ilaahay noo furay oo dadkii indhaha wada la'aayo saaka suuqa wada yaacahayaan isagoon gacmaha lahayn kii isha dabahayay tii kale ay ula ekaatay sidaasaan ku aragnaa saaka ilaahay baan ku mahadinaynaa magacayga anigoo la yidhaah yuusuf warsame cabdille kana mid ah odayaasha Shilaabood waxaan ku mahadinaynaa
dhakhaatiirta indhaha ee noo timid iyo ilaahay weynaayaan labadaba ku mahadinaynaa ilaahay baa noo keenay farsamadooda way farsameeyeen dadkii indhihii baa u baxay way u bixiyeen ilaahay baa mahaddaale ayagana waa ku mahadinaynaa ilaahay noo keenay ee dadka farsamaya qaadka ee dadka indhaha u bixinaya ilaahay noo keenay baanu ku mahadinaynaa ayagana waa ku mahadinaynaa waxaanu leenahay ha jireen oo ha joogeen baanu leenahay bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacayga ku bilaabaya cabdulaahi cabdicali degmada shilaabo odayaashada ka mid ah waxaanu ku mahadinaynaa dhakhaatiirta indhaha qalitaankooda inaanu waxaanaan filayna ilaahay noo keenay marka waxaa la yidhi laysal khabaroo kalmacayinu macnaha wax la arkay wax la yidhi la mid ma aha wax cad baanu aragnay oo naan filaynin dadkii 20 sano indhala ah 10 sano 5 sano 30 sano in hal mar indhihii ay arkaan ala magaalada wataa dhahan waa waxaan filaynin baa ilaahay baan noo keenay waa ku mahadinaynaa dhakhaatiirtaan ku mahadinaynaa saacnada wanaagsan ay keeneen dawlad deegaankan ku mahadinaynaa muxuu ahaayay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baa loo faraxsan yahay dee aabi iyo hooyadii oo galabtana garab caraabaya waa ilaahay mahadiwaanana waxaan filayna alxamdulillaah rabbil caalamiin wax kasta in sidaana looga taageero oo dawladdu xoogaal iyo maganisa dadnimo iyo firfircoon noogu daraysan aaminsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil caalamiin